abuurantay anigoo da yar ah duruufo iyo rafaad aan yaraanteedii kusoo koray aawadeed ayaan u jeclaystay inaan guuleysto waxaan in yar idina wadaagi doonaa laba xusuusood oo run ahaantii raad aad u weyn igaga tagay qalbigaygana ku dhex abuuray dab aad u holcaya oo maalinba maalinta ka dambeysa inuu sii bato mooyaane inuu sii yaraado aan lagaba yaabin waxaan xasuustaa horta waxaan ku dhashay Pakistan waxaan ku koray Mareykanka dabeetana waxaan xasuustaa ilmo horta sidiisaba ilmo Mareykanka ilmo qurbeyntu ku soo koray Hargeysa la keenay inuu la qabsadaaba adag ilmo nolol duruuf leh ka sii horeysa hadalkeedaba dhaaf run ahaantii waxaan xasuustaa yaraanteedii inaan in badan ku soo qaatay oohin iyo anigoo dareemaya inaanan qeyrkii la mid ahayn sababtuna ay ahayd inaanan haysanin wax badan oo qeyrkay haystaan anigoo haddana dhigan ku noolaa amba ku hareereysnaa bi'ad amba environment ay dad waxaanan haysanin haysta ku nool yihiin waxaan dhigan jiray school ardayda la dhigataa badankoodu ay waalidladani dhaleen anaguna duruuf baan ku sugneen run ahaantii xusuusaha aan ka xasuusta waxaa kamid ah waxaan tagi jiray schoolka inta badan anigoo nus saacana loo awoodin maalinta nus saacana loo awoodana waxaa la awoodi jiray inaan 500 soo qaadano sandwichka ugu yar ugu qiimaha yar schoolkana wax la siin jiray 2000 dabeetana waxaan xasuustaa schoolka marka ardayda la sii daayo ardayda inta yar orad bay ku tagi jireen meesha nus saacaha hablaha waaweynna way yaraha kan jireen wax soo jireen carruurta yaraha ku dhex qasmina way iyagu hablo waaweyn bay isku arkeen dabeetana anigu waxaan kamid ahaan jiray ardayda ugu horeyn oradka koobaad yani ardayda ugu horeysa baritanka ugu horeeya ku jira sababtuna may ahayn si aan nus saacaha layga dhamaynin ardayda tartamaysa waxay u tartami jirtay si aan nus saacaha looga hor dhamaynin laakiin aniga waxay aqliga ciyaalnimo isiiyay oo nu tartamayay waxay ahayd si aan buuqa ugu dhex dhuunto maalinta 500 awoodo 500 ugu dhex qariyo nimanka nus saacaha iibinaya si aan sandwichka 2000 u soo helo dabeetana maalinta sandwichka 2000 soo helo ardayda waan dhex fadhiisan jiray waan nus saacayn jiray xagga ayaamaha intooda badan aan waqtigii ku qaadan jiray dhanka iyo suuliyada anigoo run ahaantii ceeb u haystay duruuftan ku sugnaa jeclaysanahay in ardayda qeyrkay ogaadaan inaan bilaano saaca ahay iskuul sanad dugsiyeedka intiisa badanba maalin kale run ahaantii raad qalbigayga kaga tagtay doonitaan dab ah igu abuurtay waxay ahayd waxaan xasuustaa maalmo xaalado adag aan ku jirnay iskuulkan ka soo waxay anagoo bilaano saaca ah dabeetana waxaan arkay gurigii oo inta la awoodi waayay qadaha gagsan kariyo bariis cad la kariyo bariis cad oo caano leh ciir leh dabeetana maalintii koobadan soo rawaxay inamaan la dhashay hablo inta badan way ka kibir badan yihiin inamadayda way iska cuneen laakiin anigu maalintii koobadan soo rawaxay waan eegay shandadii ma iska dhigay maalintii labaad waan eegay waska seexdinta shandadeeda iska dhigay maalintii saddexaad baan u adkeysan waayay markaasaan ayeeyday oo soo korsay Ilaahay khayr badan ha siiye ku qayliyay aan si kulul la hadlay markaasaan ku yiri ayay carruurta qeyrkay nus saac ay haystaan wax kasta way haystaan waa maxay maalin kasta qadadan la karinayo ee bariiska cadi carruurta qeyrkay iyagu yani wax kasta way haystaan anagana wax kale ba dhaafo qadaha gaagsan ugu masra waxayna guriga naga daayay bariiskan cadad maalin kasta noo karinaysan dadka waxaan arkay run ahaantii waalidku waxba ma hagrado haddii awoodayso cunto ka wanaagsan in noo karso obviously way karin lahayd awood la'aanta inay awoodin inay wax hagaagsan dabka noogu shubtaana intaas xanuun iyo dhaawac ugu filnayd laakiin ma dareensaneen anigu maanta waalid ahay laakiin waan dareemi karaa dabeetana waxaan arkay ayeeyday caw ku jiiftay hadalkan ku iri dhaawacu soo gaarsiiyay dartii la ilmaysay ilmadiina la gariirtay cawday ku jiiftay intay sii jeesatay isku dayaysa ilmadii dhabanadeeda qoyayna inay iga qariso run ahaantii dhaawac aad weyn baa maalinta soo gaadhay laakiin doonitaan dab ah ayaa qalbigayga ku abuurmay doonitaan ah dhaawacan ayeeyday soo gaarsiiyay inaan ka tirtiri doono ilmadii indhaheeda aniga darteed ugu qabatayna farxad aan ugu bedeli doono haddii Ilaahay isku kaayasimo dabeetana yaraantayda waxay ugu abuurantay doonitaan dab ah oon doonayo inaan guul ku gaadho doonitaankii waxaa ii lamaaneeyay go-aankaas run ahaantii waxaan qaatay xilliyo duruufo adagan ku jiray nolosheeda xaasnimo kadib laakiin aanan ku raagin run ahaantii waynu garanaynaa shaqo la'aantu duruufta ay dadka ku keento waxay ahayd waqti aan umlay shaqadii aan awoodi waayay inaan ku noqdo odaygayuna isagoo sanad jooga uu ku noqday Ingiriiska
dabeetana labadayadiiba shaqo la-aan baa nagu dhacday muddo 4 bilooda bay ahayd saddexdiiba kafaalo qaaday inay wixii quutal daruuri ah iyo wixii daruuriyaad ah iyadu ay kafaalo qaadan doonto oo ay bixin doonto laakiin waxaan dareemay iyada kalifaad ku tahay sababta iyada laftarkeeda waxa ku yimid duruufo yara adag dabeetana waxaan go'aan ugu gaadhay inaanan odaygaygana kalifi doonin oonan uga sheekayn doonin baahidaan ku sugannahay saddexdayna aanan kalifi doonin hadba wixii la ii gartay la ii awoodo aan bismilaysto dabeetana waxaan xasuustaa go'aankayga dartii xaalad adag baan run ahaantii galay 2 bilood bay ahayd xaaladda waxaan xasuustaa marmarka qaarkood subaxa qaar waxaan xasuustaa aan soo toosi jiray anigoo gaajo la gariiraya ilmahayga yaraana ay shaqayso exclusively yani full time ay shaqayso habeenada qaarna gaajo ku saaxday intooda badan waxaan xasuustaa maalmaha qaarkood anigoo subaxda markuu waagu bariyo mobilkayga dhax qaadaya raadinaya qof aan lacag weydiisan karo amba ciidan ka sii amaahan karo lacag si maalinta wixii loo quudan lahaa aanu u helno anigoon doonayn inaan kalifo saddexda iyo odaygayga toona waxaan xasuustaa maalmaha qaarkood markaan contact kasta oo mobilkayga ku save gareysna qaraacay on cid kasta caawimo weydiistay qofaan isku dhaweyn iyo qofaan isku dhaweyn iyo qofaan isku dhaweynba ay iga dhamaadeen dadkii ciidan qaraaca aan la ahay quutal yani wixii daruuriyaadkii guriguna aan awoodi wayn aan soo dhigo because intii hore deyn baan ku soo dhigay dadkii deyntaan ka galayna aan ku noqon kari waayay run ahaantii waxay ahayd xaalad aad u adag sababtoo ah lamaan qabsanin xaalad sidaasa sanadkii ugu horeeyay guurkayga badhaadhan kusoo qaatay dabeetana xaaladaasi iga dambeysay waxaan run ahaantii u adkaysan waayey inaan dad ila mid ah hablo qaarkood ayna dumarba ahayn ay habla yihiin anigoo gabadh ah aan dib caawimo u weydiisto xaaladan ku jiray aawadeed waxaan u adkaysan waayey run ahaantii inaan kolba ku laabto dad deyn igu lahaa oo markaan intiin ka badan doontana laygu soo gacan sayriyo waxaan u adkaysan waayey run ahaantii gaajadan ku sugnaa because waxaan xasuustaa maalmaha qaarkood waxaan sameyn jiray intaan qolkayga hurdada galo ayaan qaanadaha hurdada dib u soo fiqfiqi jiray bal maalmihii lacagta buuxday iyo meelaha taaltaalay inaad wax ku ilowday in kale ka soo ogow markaasaan haddana waayi jiray laakiin xaaladaas waxa run ahaantii aan ka faa'iiday go'aan adag waxaan arkay odaygiiyo yani warwarkii stresskii uu ka qaaday shaqo la'aanta habeenkii aan seexanayn insomnia ay ku dhacday oo 10 jeer soo baraarugaya aniguna waxaan ka diidiyan u adkaysan waayey inaan bila aadam u baahanayo kolba oo dad yani qof dadna aan iska diidanahay inaan kalifo laakiin dantu igu qasbayso dadka go'aan baan gaadhay markaan xaaladda ayada ku jiray go'aankaasoo ah inaan guul gaari doono noloshan ku jiray xaaladda aan markaa ku jiray inaan dib ugu noqon doonin inaan nolol wanaagsan naftayda u samayn doono waxaan kaloo go'aan ku gaadhay inaanu odaygaygu keligay dhibtaa mari doonin because in badan waxaan arkay dumarka Soomaaliyeed waxay ma jecla ragooda inay dhibta la maraan laakiin waxaan jecel yahay inay daafta la qaybsadaan waxaan go'aan ku gaadhay run ahaantii u arki waayey cadaalad inay tahay anagu isdooranay inaan da'yar isku guursano haddana inuu isagu dhibtiyo dhan isagu dhabarka u dhigto waayo waa run diinta islaamku ninkay nafaqada dumarka amba nafaqada gabadha ku waajibisay oo isagay waajibkiisa tahay inuu hooygii iyo cuntadii iyo hugiiba bixiyo laakiin nolosha waan wada qaybsanaynaa run ahaantii waxaan cadaalad u arki waayey inuu dhibtana isagu keligii maro anigoo maalmihii habeen TV iskaga maqan amba guriga iskaga dhex raaxaysanaya isaguna warwarkii uu shaqo la'aanta ka qaaday hurdaba waayey xusuus yaraan ku dhacday dabeetana waxaan go'aan ku gaadhay inaan odaygayguna xaaladaha dhibaatada aan keligii mari doonin maadaama noloshan anagu ugu talagalnay inaan wada qaybsano aniguna xaaladda inaanan dib ugu noqon doonin dabeetana go'aankaygii ficila ka dhashay ficiladii laakiin waxay noqdeen ficilo aad u qaldan ujeedadu waxay tahay intaanan ficiladeedina wadaagin in badan oo inaga mid waxaynu guul rajaynaa amba waxaynu hiigsanaa meelo guul ina gaadhsiinaya inagoon diyaar u ahayn inagoo xirfadihii meesha aynu hiigsanayna inooga baahan tahay run ahaantii haysanin ayaynu hiigsanaa inagoon qof ahaan dhisnayn oo shakhsiyadii guushuba inaga maqan tahay baynu hiigsanaa inaynu guulaysano go'aameynu qaadanaa
inaynu noloshayna doonayno nolol ka wanaagsan heli doono inagoon go-aankaasba aynan hubin inuu dhab inaga yahay in kale dabeetana rabbi subxaana watacaala wayna imtixaamaa waxaa layna imtixaamaa go-aankaas inuu dhab inaga yahay inaga go-an yahay yacni si kastay ku qaadato waxaa inaynu xaqiijin doono imtixaankaa diyaargarowba inoogu biira wuxuu rabbi subxaana watacaala xikmadiisa dartii inoogu diyaariyaa meelaha aynu hiigsanayno inaynu guusha ku doonayno inaynu ku gaadhno dabeetana inteena go-aanku aanu dhab ka ahayni way isdhiibtaa meel dhexe markay marayso inteena aan diyaarka ahayna inteena go-aanku dhabta ka yahayna intay ku dhabar adeegto ay run ahaantii dhamaystirantaa yacni waxay qofka ka dhibnaana shakhsiyadiisii dhisantaa intaa uu imtixaanka ku jiro xirfado u kordhaan dabeetana ficiladii ayaa run ahaantii ficilkii koobaadaan sameeyey wuxuu ahaa inaan shaqo raadsado si waxaan kala kulmay haddana ficiladii dhib aada u badan because go-aankayga la eegayna go-aan dhab ah yahay jid aan hiigsanayay iyo darajo aanan diyaar u ahayna waa la ii diyaar garaynayay shaqaan helay